kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si kastoo inoo daawanaysaan ku soo dhawaada channelka Edlaw Sports Channel oo aad ka daawataan wararka ciyaaraha kubadda cagta. qodobada aan maanta ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah xidiga kaga ciyaara qayb dambe ee daafaca bidix kooxda Liverpool una dhashay dalka Spain Alberto Moreno oo 26 jir ah ayaa ku wargeliyay kooxda Reds inuusan dooneynin in heshiiskiisa uu cusboonaysiiyo xilli xidigan uu qudareynayo inuu dib ugu laabto liigaha dalkaas Spain. kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa diiday yabo kaga yimid kooxda Barcelona oo ku aadanaa 30 jirka weerarka kaga ciyaara xulka qaranka dalka Brazil William. heshiiskan ayaana waxaa qayb ka ahaa xidiga isku wadanka yihiin ee Malcolm oo 22 jir ah oo dhanka kale aadi lahaa. hase ahaatee kooxda Blues Chelsea ayaa qorshahani ka biyo diiday. xidiga ka tirsan kooxda Manchester United qadka dhexana kaga ciyaara xulka qaranka dalka Spain Juan Mata oo 30 jir ah ayaa sheegay in uusan garanaynin halka uu ku dambeyn doono mustaqbalkiisa garoonka Old Trafford xilli qandaraaska uu kula jiro kooxda Red Devils uu dhamaanayo xil ciyaareedka soo aadan. kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa waxa ay xiiseynaysaa in ay la seexato xidiga qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Hoffenheim iyo xulka qaranka dalka Austria Florian Grillitsch oo 23 jir ah si uu bedel ugu noqdo Musa Dembele oo kooxdaasi isaga tagay. daayarka garbaha kaga ciyaara xulka qaranka dalka Ingiriiska Jadon Sancho oo 18 jir ah ayaa doonaya inuu baaqi ku sii ahaado kooxdiisa Borussia Dortmund inkastoo wararku ay la xiriirinayaan inuu dib ugu soo noqon doono horyaalka Premier League dalkaas Ingiriiska. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa weli waxa ay xiiseynaysaa in ay dib ugu soo celiso tababarahoodii hore ee Jose Mourinho garoonka Santiago Bernabeu Stadium. hase ahaatee kooxda Manchester United ayaa ka dalban doonta 10 milyan oo pound kooxda reer Spain haddii dib u shaqageliyaan Jose Mourinho inta lagu guda jiro xil ciyaareedkan. Chelsea ayaa kula jirta wadaxaajood ay si deyn ah kula soo seexanayso Gonzalo Higuain oo 31 jir ah inta ka harsan xil ciyaareedkan inkastoo kooxda milkiyadiisa iska leh ee Juventus ay jeclaan lahayd in ay la gaarto heshiis ay gebi ahaanba ku iibinayso goolalyahan u dhashay Argentina. waa tahay daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa maanta barnaamijka ciyaaraha oo aad ka daawanayseen channelka Edlaw Sports Channel. idina waad ku mahadsantiin daawashadiina. intaan barnaamij caynkan oo kala mar kale hawada dib ugu kulmi doono waa saaxiibkiin aadan Edlaw oo idin leh sida iyo noli kulanta. ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso. mahadsan.